Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Maanta waxaan ka hadlaynaa aqoonyahankii, injineerkii, artistihii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci wuxuu ahaa caalim wax badan yaqaana oo ku xeel dheer. Wuxuu ahaa injineer, artiste, naqshadeeye, qoraa, saynisyahan iyo soo saare. Sidoo kale wuxuu ku xeel dheeraa xisaabaadka, cilmiga dhirta, cilmiga xidigaha, cilmiga dhulka iyo suugaanta. Leonardo wuxuu Abriil 15, 1452 ku dhashay magaalada Vinci ee dalka Talyaaniga, waxaana halka loogu magac daray Leonardo da Vinci oo ah Leonardihii magaalada Vinci. Hooyadiisa waxaa lagu magacaabi jiray Caterina di Mio. Aabihiisana wuxuu ahaa hantiile lagu magacaabo Mr. Piero. Leonardo wuxuu hooyadiisa la noolaa ilaa 5 jirkiisii. Kadib waxaa kaxaystay aabihiisa. Leonardo wuxuu ka weynaa 12 caruur oo isku aabbo yihiin. Wuxuu markuu yaraa uu aad u jeclaa inuu wax sawiro, waxaana markuu 14 jir ahaa macallin u noqday artistihii caanka ahaa lana dhihi jiray Verrocchio. Leonardo iskuul kale iyo waxbarasho kale ma soo dhigan, kaliya artiska ayuu Verrocchio ka baran jiray, waana meesha Leonardo si fiican artiska ugu bartay. Sawiraantuu sawiri jiray waxay ahaayeen kuwo cajiib ah oo kala duwan, wuxuuna sawiri jiray dadka, xayawaanaadka, dhirta, mashiiniska. Wuxuu kaloo sawiri jiray anatomiga ama habdhiska jirka, maadaama uu saynisyahan ahaa. Habdhiska dadka iyo kan xayawaanadaba wuu sawiri jiray. Waxaa kaloo naqshadeyn jiray magaalooyinka, guryaha iyo buundooyinka ama bridge-yada. Leonardo badiba magaalooyinka Talyaaniga ku yaalaan wuu ka soo shaqeeyay, sida Roma, Milan, Venice iyo Bologna, asagoo 3 sano noloshiisii ugu dambeysay ku qaatay waddanka Faransa. Ugu dambeynna 2 May 1519 ayuu dalka Faransa ku geeriyooday. Sawiraantuu sawiri jiray waxaa ugu caansan sawirka Mona Lisa.